Asalaamu calaykum. Halkan waa Habqaad Academy. Waa halkii aad ku baran lahayd xirfado kala duwan oo aad lacag ugu samayn karto internetka ama aad kugu shaqaysan karto internetka. Shalay waxaan soo geliyay muuqaalkaas oo ka hadlayay $3 iyo $6 sida loogu sameeyo website-ka aan idinla soo wadaagay. Qaar baa waxay yiraahdeen waa iska kaftan, qaar baa waxay yiraahdeen ma shaqaynayo, qaar baa yiraahdeen qaabka u shaqeeya. Maanta saaka waxaan soo galnay Zoom, Telegram-keena halkan hoose ayaan idin dhigi doonaa. Telegram-keena maanta waxaan soo galay Zoom, waxaan soo dhigay inaan kaga hadlayo qaabka la iskaga diiwaangeliyo iyo caddaynta sida ay tahay waxa aniga aan kusoo tijaabiyay in uu shaqeynayo in kale. Maanta waxaan rabaa in aan muuqaal dhammaystiran ka duubo sida saxda ah ama waxa aan kaga hadlayay muuqaalkii hore inay yihiin wax saxan iyo wax saxan. Ii ogolaada inaan idinla wadaago computerkayga si aan idin tuso sida uu ku shaqeeyo iyo qaabka lacagta looga baxo iyo lacagta aan ka sameeyay xalay tijaab ahaan aan u tijaabiyay iyo lacagta qaabka looga baxayo. Intaasba waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan. Ina keena shaashada computerka. Horta website-ka waxa uu ku jira linkigiisa sida hore idinku sheegay qaybta blog-ga ama blog hadaad tagin hooska aba soconaysaa. Ama blog-ga tagin markaad habqaadacademy.com aad booqato hoosta waad tagaysaa. Waa ka halka ay ku qoran tahay $3 ilaa $6 ka samee. Hoosta markaad tagto waa ka halka ku qoran $3 ilaa $6 ka samee. waa ka linkiga ka unba ku dhufanaysaa. Ka markaa click siiso wuxuu ku geynayaa page-kii. Halkan waxaa lagaga hadlayaa waxay tahay waa qoraalka wuxuu ku saabsan yahay. Linkigana waa kan. Linkiga waa ka ku dhufo ka ku dhufato wuxuu keenayaa halkan oo bigworkers.com ku qoran tahay. Haddii aad iska diiwaangeli fadlan linkiga isticmaal si aysan waxba kaa qaldamin. Marka ku dhufto aan already waa ii samaysan yahay. Haddii aan ku dhufto halkaasi waxaa soo baxaya profile picture-kaygii oo ahaa xalay mar aan tijaabiyay. Wuxuu ii soo dirayaa email, Gmail ayuu ii soo dirayaa. Waxaan geliyay emailka aan geliyay ayuu ku soo dirayaa. Waa hubin. Website-ka waxaa soo booqata 1.5 million. Sida arkaysa waa kan Upwork. Token number-ka waa kan 43. Hagan copy, hagan paste deh. Maan qalde. Waxaan gelinaynaa number-ku noogu soo diray Gmail-keena token number-ka. Markaan gelino dhan waa u shaqeysaa arkaysaa. Halkan marka waa my task, waa shaqooyinka aniga aan qabtay. Halka haddaan qabto shaqooyinka 3 shaqo ayaan qabtay. 2 waa pending, midna waa la bixiyay. Ku dhufo halkaas shaqadan qabtay tan weli 2 hours ka hor ayaan shaqadan qabtay. Weli qofkii maxaa raadaya jawaab lama soo siin. Tan xalay baan qabtay 14 saacadood ka hor 50 cent ayaan ku helay. Tanna waa weli lacagahan tan meeqan ku helay. Tan meeqa waa 0.08. tan meeqa way waa 0.21. waa koo ila waa 9 labadan markii isku daro kan markii lagu daro waxa weeye 80 cent ayaan tijaabo aan ku qaaday. Su'aasha kale waxay tahay lacagta bangiga waxa weeye waa lacagtii aan weli la aqbalin. Soo shaqadii waan qabtay oo u gudbiyay ninkii shaqada loo qabanayay jawaab laga sugayay. Adiga 24 hours way ku soo jawaabaan. Wallet-kayga hadaan tago markaa halkan sida arkaysaan waxa waaye withdraw ayaa la rabaa mugta. Intaan oo withdraw ayaa la sameyn karaa. Sida arkaysaan waa withdraw payable waa la sameyn karaa. Skrill waxaan oo dhan waa withdraw waa ku sameyn kartaa. Qofka withdrawga ah lacagta balance-ga laga dhawdo waa $5. Lacagaha marka fursadaha halkan aad taala waxa weeye sida hore aan fiigooda hore ku soo duubay xitaa halkan lacagta rabtid inaad ka bilaabato ayaad ku dooranaysaa apply aad leedahay. kadib shaqada noocay tahay isleedahay adiga waa qaban kartaa
shaqo walba markaad ku dhufato meesha waxa yaala sidoo qofku u rabo inaad shaqada u qabato halkan waxa ku qoran qaabka isaga ku leeyahay sidaas samee kadibna cadeymaha halkan ku soo dir waa intaas oo kaliya shaqada hadaad qabato waxaan hubaa maalintii inaad ka shaqeyn karto $6 $7 $8 $10 hadba sida dadaalkaaga iyo degdegaaga iyo shaqadaada ku xirantaa way marka waxaan rajeynayaa muuqaalka inuu noqon doono mid idin maxaad radaa cadeeya wax saxda ah bahalkan lacagta laga sameeyo fadlan waxaan rajeynayaa in aad la wadaagi doontaan asxaabtaada si ay uga faa'iideystaan si lamid ah saad ugu faa'iideysatay tijaabi isku day raac ha qaldin laakiin waxa hadaad qalado wuxuu ku leeyahay qofkan halkan hadaad qalato akhri marka hore wuxuu ku leeyahay read carefully minaha si fiican si taxadar loo akhri steps ku maraya adiga step ku ogol yahay mar kadibna lacagta automatically waa ka shaqeynaysaa maalintii $10 $5 waa ka shaqeynaysaa internetka lacag baa ka bixisa data ku soo shubata saa hore idinku sheegay waxa waaye wax feedback wax soo celin ama jirto waxa la rabaa lacagta mugtahay in wax markay lacag ka baxaan inaad wax soo celiso marka waxa rajaynayaa tan in noqoto in wax soo celiso waxa kale jiro website badan oo kan ka sahlan oo laga sameeyo lacag laga sameeyo oo si kale affiliate ahaan u shaqeeyo marka waxaan rajaynayaa in website-daas laftigooda soo wada laakiin tan marka hore isla fahanno tijaabi adiga waxaan wax qarsoon ma aha aad tijaabi nafsadaada ku tijaabi ana waan tijaabiyay sida arkaysa halkan earningkan waqti uma hayo hadii kale waan wadi lahaa oo ilaa $10 $20 ayaan gaarsiin lahaa laakiin aad soo tijaabi soo eeg inay shaqeynayaan maday shaqeeyaan fadlan linkiga hoose halkan habqaad markaa booqato halkan markaad booqato waxaad ku dhufataa halkan forumka halkan ta arkaysa forumka halkan su'aalaha la iska weydiiyaa waxa ku jirta 22 member ayaa ku jirta soo arkaysa topigyada postiyada halkan ku dhufo kadibna maxaa la yiraahdaa waxaad tiraahdaa aad dheh topicaaga aad stage ka raadi memberskaaga raadi ku dhufo maxaa halka su'aal lagu soo weydiiyo waxa kale soo heli kartaa telegram keena telegramka habqaad waxa booqan kartaa laftigeeda xataa youtube xataa waa booqan kartaa youtube ayaan ku leenahay oo ku qoran tahay habqaad academy ku qorto hore kaaga soo baxaya laftigeeda casharada waan soo dhignaa marka waxaan rajeynayaa ka faa'iideysan doontaan fursadahan iyo fursadaha kale soo socda inaad ka faa'iideysan doontaan aad baan idin salaam asxaabtiin la wadaaga tanna ha noqoto cadeyn dhab ah oo xaqiiqad ku salaysan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan waan idin salaamay si shirkada asxaabtiin la wadaaga oo maxaa la yiraahdaa si aan anagana dhiirigelin ay nagu noqoto oo aan muuqaalo badan ka qurux badan aan u sameeyno aad baan idin salaamay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh